السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالوا كسود هذا القناة كنا فضلنا هدي أنا قعدت سبسكرايب إنه ده هدهر إنه اللي جوكتنا لايك تشيرت كومنت وإنه دير جلين بالكنا فروسياد ونقطة دعوة كواد فيديوجا إن ما أنتوا حكى هاد للدونا سيدا بعد السجاير رين كرتا برورتا علاشة إن بدن ضدكوا يكون بقبان وأنا وأنا محيه تضوح عالم كودن كشرة laakiin se waxaa la kala dheeryahay dadaalka qof walba sidii u dadaalo ayuu u noolaan karaa ama jirkiisa u noqon karaa marka waxaan ka hadlaynaa waxyaabo kuu sahlaya inay baruurta caloosha kaa yaraato fast hotor waxaad ku dadaaleysaa inaad isticmaasho waxyaabaha fiberka leh ama dalaga dhulkeena ka baxa waa ayuu dalag oo dhulkeena ka baxa oo isticmaali karto waa ina isticmaashaa oo ka fogaataa burka iyo briiska iyo sidoo kale tan waa ina ka fogaataa sonkorta fara badan sidoo kale waa inaad ka fogaataa cusbada ayadana caafimaad ahaana way u wanaagsan yihiin intaas inaad ka fogaato yacni jismi ahaana jismigaada aad ayuu qurux badnaanaya markaa ka fogaato burka iyo briiska iyo sonkorta faraha badan iyo waxyaabaha faadka aadka u fara badan waa inaad maxay ka fogaataa sidoo kale waxaad ku yareyn kartaa calooshaada ama waa dhimi kartaa baruurteeda fast hotor markaa subaxdii soo kacdo waxaad isticmaalaysaa koob biyo qandac ah ama biyo diiran waxaad ku miiranaysaa jeex liimo dhanaan ah haddii aadan isticmaali karin liimo dhanaanta waxaad ku bedelan kartaa gengirka ama maxay ahaytood sinjibiisha qoyan iyo waxaad isku darsanaysaa koobka biyaha diiran ah intoodaba haddii ku dhibayaan oo aad gaas ka qaadayso dad fara badan oo waxaa jira gaas ka qaada waxyaabahaas kulul waxaad ku bedelan kartaa biyo kaligood oo diiran ayaa isticmaalaysaa sidoo kale waxaa kaa saacidaya inay baruurta caloosha kaa jirmato waa inaad walk samaysaa ama socod everyday waa inaadan noqon haddii jeer markaad baxayso inaad bajaaj ama baabuur iyo waxaas aad raacdaa waa inaad ku dadaashaa socodkaada caafimaadkaadana aad ay ugu wanaagsan tahay baruurta calooshana way ka yaraanaysaa sidoo kale waxaad ka fogaanaysaa waxyaabaha alcoholada ah ka fogow iyadana uma wanaagsana caafimaad ahaan iyo dhanka jarista baruurta caloosha sidoo kaleeto waxaad sameynaysaa cusbadana waa inaad ka fogaataa sidoo kale waxaad sameynaysaa jimicsina ku dar haddii ay caloosha baruurta ka yaraato ood iska dayso maqaar ayaa meesha kasoo baxaya oo calooshaada way jilcaysaa ama jirkaada wuu jilcayaa marka waa inaad sameysaa jimicsi ilaa 30 daqiiqo 40 daqiiqo intaad awoodo maalintii intaas markaa sameyso raashinkaadan isku dheeli tirto waxaad ku daraysaa jimicsi ayaa ku daraysaa insha Allah waxaa noqonaysaa qof aad u qurux badan jirkiisa soo dhawaada